السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو waxaan idinkula wadaagi doonaa 7 qodob oo aad uga faa'iideysan karto bisha Ramadaan. Ramadaan waa bil barakeysan oo Rabbi Subxaanahu wa Tacaala inagu manaystay una baahan inaynu ka faa'iideysano si aynu ugu guuleysano dambi dhaafka Rabbi iyo raali ahaanshihiisa. Sidoo kale waa bil Rabbi dhex dhigay fursad aad u weyn oo aad ku bedeli karto noloshaada. Rabbi ha inaga dhigo kuwii ka faa'iideysto noloshoodana u bedelatii ugu fiicnayd. Si aad uga faa'iideysato bishan waa in aad ku tala gashaa in aad samayso qodobada soo socda. 1. waa inaad dhamayso Qur'aanka Kariimka ah bishan 3 goor. Haddii aad dhameyn kari weydo 2 goor, ugu yaraana hal mar waa in aad gabagabayso oo dhamayso Qur'aanka Kariimka ah. Maadaama oo ay tahay bishan bishii Qur'aanku soo degay, ay tahayna bishii Qur'aanka in badan la akhriyay. Qodobka 2. inaad ku dadaasho sunnayaasha 12 ah ee salaadaha raaca. 2 ka horeeya salaada subax, 4 ka horeeya salaada duhur iyo 2 ka dambeeya salaada duhur, 2 ka dambeeya salaada maghrib iyo 2 ka dambeeya salaada cishaa. Qodobka 3. inaad joogtid masaajidka eedaanka. Maxaa yeelay arrinkan waxa uu ka saacidayaa inaad gudato sunnayaashii iyo faralkii si fiican oo qiimo leh. Qodobka 4. inaad ilaaliso salaatul leylka, gaar ahaan salaada taraawiixda oo ku tukato jameeco ama masjidka ama gurigaaga. Qodobka 5. in aad badiso ducada. waliba qofka sooman ducadiisu waa la aqbala, gaar ahaan marka uu afrayo. Ducaduna waxay ka qayb qaadataa in Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala waxaad jeceshahay uu ku siiyo, Ilaahayna Subxaanahu wa Tacaala ugu dhawaato. Qodobka 6. samayso waqti aad samayso dikriga oo ku badiso dikriga oo Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala weynayso oo tiraahdo 100 goor ugu yaraan subhanallah, astaghfirullah, Allahu akbar, oo aad dikri gaar la timaadid. inaad maalin kasta wax sadaqaysato oo aad la baxdid sadaqo si ay ku anfacdo maalin aad uga baahi badan tahay maanta. Insha Allah Tacaala waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysato 7 qodob lana wadaagto asxaabta aad jeceshahay in ay ka faa'iideystaan bisha Ramadaan. aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.